sidoo kale daawadayaal waxaanu warbixin idinka haynaa hudheel adeegiisa bilaa lacag uga dhigay dadka burburan. haddii aad hudheelka kan tahay qof buuran oo aad cunto cuntid wax allaale wax lacaga oo laga qaadaya haba yaraatee ma jirto. masleedahay hadaba hudheelkaasi wuxuu ku yaalaa dalkeena Soomaaliya oo cid walbiba maanta haddii ogaato hudheelka kan waa u doonan kartaa. yaana ka hor dhicin waa kan wariyaheena Xamse Kaafi Axmed oo warbixinta tan inoo soo jeedinaya. dhacdo ka mid noqotay arrimaha la yaab kale adduunka ayaa maamulka hudheel ku yaala dalka Shiinuhu ku kacay dhawaan, taasoo la xidhiidha adeeg bilaa lacag ah oo macaamiisha qaarkood u fidi doono hudheelkaasi, gaar ahaanna kuwa buuxiyo shuruudo aad looga wada yaabay oo ku xidhan in qofku rag iyo dumar helo adeegaas bilaashka ah. sida inta badan warbaahinta dalka Shiinuhu ku warantay, hudheel ku yaala dalkaas oo lagu magacaabo Nohun Restaurant ayaa xayeysiis cusub oo dhawaan warbaahinta ku baahiyay adeegyada bilaashka ku soo daray cunto iyo adeeg dheeraad ah oo loo fidin doono ragga aadka u burburan ee miisaankoodu 140 kiilo gaadho. waxaa kaloo adeegan lacag la'aanta heli doona haweenka dhuudhuuban ee miisaankoodu 35 kiilo iyo wixii ka hooseeya uu yahay sida xayeysiiskaasi dhigayo. labiya dhadig mid kastoo shuruudahan buuxiya waxaa isagu iyo dadka la socda la siin doonaa adeeg cunto iyo mid sharaab oo bilaash ah. si qofku uu xaqiijiyo inuu buuxin karo shuruudahaas waa inuu isku qiyaaso miisaan albaabka laga galo hudheelkaas ku yaala, kaasuu marka uu ku ogaado miisaankiisu inuu gaadhsiisan yahay qiyaasta la doonayo uu ku bushaaraysto adeegyo bilaa lacag ah. inkastoo aad dadka badankoodu la yaabeen xayeysiiska hudheelkan, haddana waxaa suuragal ah in dad buuxiyo shuruudahaas laga heli karo dalka Shiinaha oo isagu ah kan dadka ugu tirada badan dunida ay ku nool yihiin. sida ay ku warantay jariirad ka soo baxda dalkaasi, mulkiilaha hudheelkan ayaa sababta uu go'aankan u qaatay ku tilmaamay mid uu macaamiishiisa ku dhiirigelinayo kuna doonayo sidii ay fursad uga heli lahaayeen tartan dhiirigelin iyo jiribaad isugu jira. Xamse Kaafi Axmed, Raadsan TV. waa tahay daawadayaal aad iyo aad baan horta uga xumahay hudheelkii inuu noqon waayo hudheel dalka ku yaala uu noqday hudheel meel kale ku yaala amba waxaas lahaa berito lama aadayo hudheelkaas ma iska soo diiwaan gelisaa. warbixintaas waxay ugu dambeysay barnaamijkeennii subaxnimo ee faaqidaada tan iyo intaanu barnaamij la mid ku kulmi doono waa ficilo idin leh qof walba muraadkiisa macsi lahayn midigta Allah ka siiyo.